muqdisho iyo Soomaaliya waxay sanadkii tagay ku sagootiyeen murugo iyo niyad xumo kadib markii ururka al-shabaab ay mar kale baabuur sida 100 kiilo oo qaraxyo ah ay u soo dhiibeen qof nafti haliga ah kaasi oo lala beegsaday isgoyska ugu mashquulka badan ee laga baxo lagana soo galo magaalada Muqdisho waa Ex Control. galka baaristu waxa uu ka helay ila dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay in hay'adda nabad sugiddu ay heshay macluumaad ku saabsan in ururka al-shabaab ay qorsheynayeen inay weeraraan shaqaalaha Turkiga ee dhisaya jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye. dhinaca kale 2 maalmood kadib markii uu dhacay weerarkii 28 Disembar sanadkii aynu soo dhaafnay waxa dawladda Soomaaliya ay ku eedeysay waddan shisheeye inuu lahaa qorshihiisa. isla maalinta hadalkaasi soo yeerayna ururka al-shabaab oo aamusnaa muddo 2 maalmood ah waxay qirteen mas'uuliyadda weerarka waxayna sidoo kale markii ugu horeysay al-shabaab ay qirteen in dad rayid ah ay dileen. marmarsiyaha ay bixiyeen ururka al-shabaab ma yahay mid cudurdaar leh imise qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay weerarada ay geysanayaan ururka al-shabaab. haddaba ka hor inta aynaan u gudbin jawaabaha su'aalahaasi galka baaristu waxa uu idiin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay isgoyska Ex Control 28 Disembar 2019. subaxnimadii sabtida 28 Disembar ayaa la sheegay in baabuur nooca xamuulka ah oo nooca loo yaqaano dhaynaha uu soo gaaray nawaaxiga Ex Control. darawalka waday waxa uu helayay xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqa baabuur Toyota ah oo 2 shidley ah oo ay saarnaayeen shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha jidka Afgooye ee Muqdisho. shaqaalahaasi oo u dhashay waddanka Turkiga waqti lagu qiyaasay ilaa 7:40 daqiiqo ee subaxnimo waxa uu baabuurkaasi si aan kala sooc lahayn u galay isgoyska Ex Control waxaana uu ku dhuftay baabuurkii ay la socdeen shaqaalaha Turkiga. galka baaristu waxa uu helay xogo hordhac ah oo muujinaya in baabuurka isqarxiyay lagu soo farsameeyay qalabkana lagula soo rakibay deegaanka Buulafalaay ee u dhaxeeya Shabeellada Hoose iyo gobolka Baay. waxaa la sheegay in xilliga la rakibay iyo maalinta uu qarxay ay u dhaxaysay ilaa 6 maalmood. baabuurka ayaa soo maray degmooyinka Toorotorow iyo Janaale isagoo kadibna jidka magaalada Muqdisho kaga soo dhacay inta u dhaxaysa Wallaweyn iyo degmada Afgooye. sirdoonku waxay aaminsan yihiin in saacadihii ka horreysay weerarka uu baabuurku ku sugnaa duleedka Muqdisho. galka baaristu waxa uu ogaaday in saraakiil ka tirsan amniga degmada Afgooye laga wareystay sida uu baabuurkaasi ku soo gudbay buundada Afgooye. galka baaristu waxaa sidoo kale uu xaqiijiyey in buundada Afgooye aanay oolin qalabka lagu baadho ama sheegi kara baabuurta sida waxyaabaha qarxa. tuhunka booliiska Afgooye ayaa soo baxay markii 3 ka mid ah askarta saldhigga degmada Afgooye ay ku dhinteen qaraxii Ex Control. galka baaristu waxa uu ila dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay uu ka helay macluumaad muujinaya in qaraxaasi aanu ahayn mid lama filaan ku ahaa mas'uuliyiinta amniga gaar ahaan hay'adda NISA. sababtoo ah waxay filanaysay hay'adda NISA weerar ka yimaada ururka al-shabaab oo bartilmaameedsada shaqaalaha Turkiga ee dhisaya jidkaasi. galka baaristu waxa uu ogaaday in adeegsiga baabuurkaasi uu ahaa go'aan dambe oo ay qaateen ururka al-shabaab balse nooca weerarka al-shabaab ay qorshaysay inuu ahaa adeegsiga miino waddada dhinaceeda lagu aaso oo lala beegsado baabuurta sida shaqaalaha Turkiga. kadib markii weerarka miinada uu suurtoobi waayeyna ay al-shabaab go'aansadeen inay baabuur u adeegsadaan fulinta weerarkaasi. galka baaristu waxa uu helay xogo sheegaya in xogta ku saabsan weerarka al-shabaab ee ka dhanka ah muwaadiniinta Turkida ay heshay hay'adda NISA. xogtaasi oo ahayd in si uun loo weerari doono shaqaalaha Turkiga. waxaa kaloo galka baaristu uu ka ogaaday ilo dhinaca amniga ah oo magacooda qariyey sababtoo ah looma ogola inay macluumaadkan bixiyaan in xogtaasi ay heshay NISA aan lala wadaagin safaaradda Turkiga oo ilaalisa danaha muwaadiniinta iyo shirkadaha Turkiga ee jooga Soomaaliya. mas'uuliyiinta safaaradda Turkigu waxay galka baarista u xaqiijiyeen inaysan helin digniin ku saabsan inuu weerarkaasi ku soo aadan yahay. dhowaan mar aan waraysi la yeeshay safiirka Turkiga Mehmet Yilmaz ayaan weydiiyey inuu isagu helay wax macluumaad ah oo ku saabsan weerarkaasi. I don't have any this kind of report to me, but I don't know if company has received or not. ma hayo xog ku saabsan wararkaas. ma ogi haddii shirkaddu xog heshay iyo haddii kale. galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xiriiro shirkadda NS oo ay ka tirsanaayeen 2 shaqaalaha ee ku dhimatay weerarkaasi. hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka. waxaa mas'uuliyiinta aan la hadlay ay aad uga walaaceen in xogta laga helay weerarkaasi aan lala wadaagin waddan isbahaysi dhowlo leh dawladda iyo dadka Soomaaliyeed oo lala damacsanaa weerarkaasi.
waxaan isku dayey inaan arrimahan ka waraysto wasaaradda amniga ee Soomaaliya iyo hay-adda niisa hase yeeshee galka baarista uma suurtagelin inuu ku helo khadka telefoonka. ururka al-shabaab waxay dhabarka u riteen mas'uuliyadda weerarkii ka dhacay Ex-Control 28 December ee sanadkii aynu soo dhaafnay. waxay kaloo qirteen markii ugu horreysay inay dad rayid ah ku dhinteen weerarkaasi. al-shabaab waxay sheegteen in weerarkaasi bartilmaameedkiisu uusan ahayn dadka rayidka ah, waxayna sheegteen oo kale inay og yihiin in dhiigga muslimiintu uu xaaraan ka yahay, sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ururkaasi Cali Dheere. hase yeeshee galka baaristu waxa uu diiwaan geliyey weerarro badan oo al-shabaab ay si toos ah ula bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah oo keliya, oo aysan joogin xubno ka tirsan laamaha amniga, dowladda Soomaaliya iyo ajaanibta ka shaqaysa waddanka ama gargaara dowladda Soomaaliya. weerarradaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii suuqa beerta ee dhacay Noofembar 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 40 qof. weerarkii lala beegsaday Pizza House bishii Juun sanadkii 2017 oo ay ku dhinteen 20 qof. 2 weerar oo ka kala dhacay Kaawagoday bishii Febraayo 2017 oo ay ku dhinteen 40 qof. iyo mid kale oo ka dhacay isla suuqa degmada Wadajir Noofembar 2018 oo ay ku dhinteen 12 qof. 2 weerar oo ka kala dhacay xeebta Liido Febraayo 2016 iyo August 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof. Macallin Siciid Cabdulla Dilib waxa uu hore uga tirsanaa ururka al-shabaab. warigooda yiraahdaan annaga dawladda kaliya taariikh gareysana shacab wax ma yeelno, waxaan ku yiraahdaa dadkan waa muslimiina waa dad nala dhashay, laakiin waxaa la ogyahay maaragtay shaqo walba oo ogyahay ayaga laftirkooda ay ogyihiin qaraxyada shacabku baabiyaan muslimiinta ah. waxaa ka mid ahaa qaraxii 2016 November maaragtay ka dhacay suuqa beerta. xarun dawladeedna ma aha, ciidanna meesha ma joogo, dawladna ma joogto. waxaa ka mid ahaa maaragtay qaraxii nimankii galay muxuu ahaa meesha la yiraahdo Pizza House oo gabdhii masaakiinta laay ma biisus ma dawladda ku jirtay, ma dawladda shaqo kule meesha. labadii qarax ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho waa qaraxyadii Ex-Control iyo qaraxii Hargaha iyo Saamaha ee kala dhacay 14 Oktoobar 2017 iyo 4 Oktoobar 2011. waxaa la sheegaa in inkastoo labada qaraxba uu bartilmaameedkoodu ahaa meelo kale, haddana saraakiisha al-shabaab ee hagayay qaraxyadaasi ay go'aansadeen in ismiidaamiyaashii wada baabuurtaasi ay ku qarxiyaan meesha ugu soo horraysa ee u suurta gasha, oo ay ku jiraan goobaha rayidka sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh ururka al-shabaab. saraakiisha al-shabaab ee qaraxyada hagta oo inta badan khadka telefoonka si toosa ugula socda dareewallada wada baabuurta qaraxyada ayaa iyaga laftoodu ay qarxiyaan baabuurta inta ay soo wacaan lambar ku xihan qaraxa. waa haddii dareewalka baabuurta wada la toogto ama la qabto, ama ay la noqoto in baabuurku uusan gaari karin bartilmaameedkiisa. saraakiisha amniga iyo kuwa hore uga tirsanaan jira xarakada al-shabaab waxay aaminsan yihiin in qirashada al-shabaab ee dilka rayidka ay ahayd mid lagu daminayay guux iyo khilaaf ka dhashay xarakada dhexdeeda oo ku saabsanaa beegsiga rayidka. sidaasi oo kale al-shabaab waxay bishii Oktoobar 2017 isku dayday inay caburiso khilaaf ka dhashay weerarkii Zoobe, kaasi oo markii dambe ay xeel ku damiyeen. galka baaristu waxa uu ka ogaaday ilo kala duwan in mas'uuliyiinta al-shabaab ay qirteen mas'uuliyadda qaraxii Zoobe, ayna xubnihii su'aalaha ka keenay dilka boqolaalka rayidka ah ay u sheegeen inay guddi u saarayaan si magdhow loo siiyo dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe, taasi oo aan haddana dhicin. maxamed xasan aadan Sandheere waxa uu ka mid ahaa saraakiisha diyaarinta baabuurta dagaalka ee ururka al-shabaab, waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii khilaafka ka dhashay qaraxa Zoobe darteed uga soo goostay ururka al-shabaab. waxaa igu dhaliyay Haaruunow maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in ummadii dhiigooda la isku binaysto, iyaga dhexdooda hadday tahay iyo haddii ay yihiin shacab labadaba. waa garta wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa, dhacdo si gaara kuu dhibtay adiga oo dhibsatood isdhaxday wallaahi tan hadday saa ku sii socoto ma qaadan kara ani waan tegaya? haa, dhacdooyinkaasi waa ay badan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa sida tan Zoobe oo kale. waayo tan Zoobe haddaan u soo laabano, iyagu dhexdooda ma ka hadleen, ma qirteen? inkastoo ilaa hadda aysan si rasmi uga hadleen, laakiin maadaama aad ku dhex jirtay way qirteen soo ma? iyagu maxay ka dhaheen? qirisho ma ahan,
aniga horta ninka sooba isku qarxiyey anaaba laf ahaanteyda aan isnaqaanay shaqo ahaana aan isku shaqo ahayn oo isku dhaweyn inta uusan isqarxin muddo bil iyo bar ka horeysay ayaan maaragta wada tabanay isagoo weliba baabuurka hadda uu isku qarxiyey watiyaamka ahaa wato xilli habeena meel tuula aan maaragta anoo socdo isku aragnay isagoo weliba baabuurka ka hadlaysan yahay meeshii aan abaar ku sheekeysanay waxaan weydiiyey su-aalo ahaa baabuurkan maadaama aada wado haddana wuxuu dhahay markaas intaan su-aasha weydiin ka hor xamaraan ka yimid haddana waxaan u wadaa ari baabuurka iga hadlaysan awgeed gacanta u joogaa sheekh bashiir axmed salaad waa guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed waxaan hordhigay diiniyan sida uu arko qirashada al-shabaab ee xilligan ee dilka dadka rayidka iyo cudurdaarka ay ka bixiyeen nimankan hadalkoodu waxaa weeye hadalkii bay ku celcelin jireen weye keli waxaa ku cusub masalada ay leeyihiin waa ka ciyaareenaa muslimiinta wax gaareen marka hadda intaana ka hadlin maaragtay muslimiin in meel gaalo lagala jihaadayo in muslimiin wax gaaraan see noqonaysa xilinkeeda iyo maaragtay waxnahaasoo kala ana ka hadlinba waxaa ka cusaba marka shaqa ay hayaan shaqa ay xaq u leeyihiin ma tahay diinta islaamku waxayna baraysaa qofku hadduu shaqada uleeyahay biteeri ama uleeyahay salaaxiyo ama uu wilaayo uleeyahay ama ay maaragtay maxaanka loo ihin markaas ayuu wixii khaldo wixii kale la fiirin karaa sida dhakhtarka oo kale sida ninka qaaliga oo kale waxaa qof matalan dhakhtarka markuu dhakhtar yahay cilmigeeda yaqaano lesankeeda haysto hadduu khaldamo khalabkiisa waa maaragtay waa la fiirin karaa maxaa yeele qof shaqadiisa yaqaano loo ilmeeyay marka nimankan totally ama ha saxaan ama ha mudaan shaqo aysan lahayn bay faraar kula jiraan waana shaqo xaaraan ka ah nabi sal alay wasalam xadiis buu ku sheegay ninka qaaliga ah yani qof wuxuusa xil u lahayn qaali ka noqonaya haddii uu asiibo uu maaragtay jawaabta saxda ay ku jawaabo ahlunaar wey ninkaas laga yeeri maayo maxaa yeele waxaanu shaqadiisii maaha garanaysi marka waxa weeye nimankaa waxay maaragtay faraar kula jiraan ay maamulahayaan ee sheegsheegay oo jihaadka ahay wax shaqadooda amaaha jihaadku waa shaqada muslimiinta maamulkeeda ayaa iskale jihaadku siyaasada muslimiintu ay kula dhaqmahayaan dadka aan muslimiinta ahayn weeye waa bitacbiir aakhar waa siyaasa khaarijiya wey siyaasa khaarijiyana ummadda muslimkaa dadka u maamulaa waxa weeyaan waa maamulkooda iyo hogaankooda maamusha maxaa siyaasa khaarijiya hal weji ma laha intaas weji bay leedahay marka nimankaani soo kale waa dhakhtar aan loo idmin inuu wax qalo inuu wax daaweeyo oo meel cidla iska furto oo leysin beena haysta waa in laga xiro ase lasoo xiro mudan weeye laakiin macdaada nabiga sallallahu alayhi wasalam isagoo jihaadkiisa la huro oo nabiga ilaahay yihi sallallahu alayhi wasalam oo maaragtay xaggeeda lagu soo diray wuxuu la dagaalamayaa gaalo la hubo ay tahay waxaa dhacay nabiga sallallahu alayhi wasalam markii xudeeriya uu maka aaday uu soo cumraysanayay oo loo diiday inuu cumraysto oo maaragtay meeshii xoolo ay kul fadhiyey oo dib weyn maaragtay uu ka dhici damcay ilaah subxana wataala wuxuu noo sheegayaa haddii dad muslimiin ahoo yar oo maka joogay oo ku haray oo ku daciisanaayo lagu dhigi jiray aysan jirinin oo haddii maka la weeraro dhib ka gaari lahaa ilahi subxana watacaala wuxuu leeyahay maka aad gashaan baa laidin ogolaan lahaa oo markaas gaaladaas maxaanku yiraha idin dhibtay ilahi subxana watacaala la dagaalamaysay diinta ilaahay la dagaalantay oo idinkana hadda inaad maaragtay xaramka ilahay gashaan idin diidan ayaa maaragtay maxaanku la xagaabi lahaa oo la xiqaabi lahaa magarata marka ayadan ku akrinayaa ilahi subxana wuxuu leeyahay هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا عند بلوغ المحلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم وتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا من عذابا أليما فصوت فتح آيات 17 الله تعالى يقول تعالى عوية وحرمت إلهي ما دعنا يديدا marka fiiri waa gaalo la hubo ay ku darsadeen dagaalda ku darsadeen muslimiinta kasoo qaadeen maka hadda inay cumrataan u diidan yihiin laakiin hadda inaan la laynin oo aan maaragta maka la gelinin oo ciidanka nabiga sal alay wasalam aan loo ogolaa inuu maka galo maxaa keenay ilahi wuxuu leeyahay niman mu'miniina iyo dumar mu'minaad ah oo jooga maka oo idin garanaynin oo laga yaabin haddaa maka gashaa inaad dib gaarsiisaan darteed ayaa laydinkaga joojiyey saasuu macnaheedu yahay gaaladii maka deganayd oo dhibka badnayd oo tiro badan ahayd
waxaa lagu badbaadiyey dad yar oo muslimiina dadka ku dhex jiray ay ku badbaadiyeen. maantana maxaa dhacaysa? maantana waxaa dhacaysa hadday yihiin gaalada gaala maba misal hadda turkida oo hadda muslimiina wey, laakiin laba nin bay ahaayeen ciidankooda meequ ahaa hadda muslimiina aska soomaaliyeed kaba soomaal inay gaala ahaayeen meeqaa dhibata muslimiina. marka nimankaani niman cagsi u shaqaynaya weeye, cagsiga u shaqaynayaan muslimiin badan bay leynayaan ayaga oo dad ay gaalo ku sheegaan oo iyo raacsanay. nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay amarkiisa isagoo maaragtay gaalo badan u jeeda oo laga gargaran yahay ayaa gaaladii fakatay oo la daayay ayadoo muslimiin yar oo tiro yar ah ee ammaan siinaya. hay-adda ururinta khasaaraha nafeed ee colaadaha dunida ee lagu magacaabo Armed Conflict Location and Event Data ACLED waxay galka baarista u sheegtay in tan iyo sanadkii 2015 dadka rayidka ah ee lagu dilay qaraxyada, afduubyada iyo weerarada kale ee ururka Al-Shabaab ee lagu bartilmaameedsada rayidka ay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 oo qof, halka laga soo bilaabo sanadkii 2010 ilaa haatan dadka rayidka ah ee ku dhintay weerarada Al-Shabaab ay dhan yihiin 4,340 qof. cisbitaalada Muqdisho waxaa la geeyaa dadka ku dhinta iyo kuwa ku dhaawacma weerarada rasaasta iyo qaraxyada ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda. agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaan weydiiyey dadka ku dhaawacmay rasaasta iyo qaraxyada ee la geeyay cisbitaalka Madiina oo ah kan ugu weyn ee qabta dhaawacyada iyo dhimashada laga soo bilaabo markii ay dagaalada xoogan ka bilowdeen magaalada Muqdisho sanadkii 2007, xilligaasi oo ay bilowdeen dagaaladii u dhaxeeyay ciidamada Itoobiya ee taageerayay dawladii ku meel gaarka ahayd ee xilligaasi jirtay iyo ciidamadii isugu jiray muqaawamada iyo Al-Shabaab. dhaawacyada aniga aan jirgareynay waqtigaas ilaa maanta waxay kor u dhaafayaan 54,000 oo qof oo dhaawac ah. waa isbitaal Madiina kaliya. marka dhaawacyadaasi maxay ka yimaadeen? dhaawacyada marka aan kala saarno anigu ma sheegayo dhaawacyo ka yimid midiyo inkastoo ay dhaawac yihiin, laakiin waxaan ka hadlayaa dhaawacyada ka imaaday hub dadka oo maxay ahayd qoryo oo ah qarax. intaas wey qarax oo haddana noocyo kale ah roogyo la isku toostuuray ahay muddooyinka hore qaraxyo inta baawar laga soo buuxiyey marka dambe meelo inta la dhigo la qarxinayay oo yani khasaaro weyn keenayay iyo dhaawacyo marka ugu dambeysana baabuurta la isugu dugunayay iyo xabado toos la isugu tuurayay oo dadka la isku leynayay maaragtay. marka intaas kaliya haddii aan ka hadalno illegal wounded waxay imaanaysaa 54,000. waayo waxaad ii sheegtaa marka muddadaas dadka dhintay ama cisbitaalka ku dhintaan ama meyd ahaan loo keenay ay ku soo dhaceen xabad ama qarax ama wax hub la xiriira? waxa waaye meydka waa badan yahay, aada u badan yahay. adiga waxaa xisaabtaa 100 dhaawaca haddii la keeno in 20 ay ku jirto oo meydana la keenayo cisbitaalka. cisbitaal kale oo la geeyo dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta weerarada loo adeegsado rasaasta iyo qaraxyada waa cisbitaalka Daarushifa, waxaana uu galka baarista u sheegay in tan iyo sanadkii 2004 ilaa 2019 la geeyay cisbitaalka daddan 17,412 qof oo dhaawac ah, kuwaasi oo 8,603 qof ay yihiin bulshada rayidka ah, halka muddadaasna ay cisbitaalku diiwaan geliyeen dad ku dhow 300 oo qof oo dhimasho ah. waxaa iga xasuusinaa dhegaystayaal in shaqada bani'aadminimo ee cisbitaaladani ay hayaan awgeed aanu galka baaristu weydiinin su'aasha ku saabsan inay cid gaar ah u saaraan mas-uuliyadda dilka iyo dhaawaca soo gaaraya dadka rayidka ah. qaraxa ugu dhimashada badan ee Muqdisho ka dhacay muddada ka badan 10 sano ee magaaladu ay wehelka u noqotay qaraxyada waxa uu ahaa qaraxii Zoobe oo guddiga gurmadku ay hore u sheegeen inay ku dhinteen 587 qof. hase yeeshee markii ugu horreysay agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay tiro ka badan inta la shaaciyay inay diiwaan geliyeen oo ku dhimatay qaraxii Zoobe. dhibaatada dhacday ilaa 600 oo gaarmiiska iyo 30 midna Soomaaliya ma soo marin. inta dhibaato u geystay iyo daawadka oo lahay qaraxaasi jiro wax lagu mashaqo karo oo dawoodo ilaahay mar dambe loo kasoo qaasa qaasa aad iyo aad binaadamku baadiyo waxay Soomaali baadiyo imisa ku dhimataa tiri imisa ku wada dhinteen imisa ku dhimataa 230 anaga 232 loo keenay oo meeya markii dambana waxaan loo soo daray adiga 16 kale
subaxii waxaa waaye waa loo yimid adiga waa la wada qaaday meydkaasi fiskool galishaa lagu duuyo waxay ahaayeen dhuxul anaa kutusi doono qaarkood. laakiin guddigii taakulaynta oo diiwaangelinta sameeyey cabdullaahi maxamed shirwac oo madaxda ka ahaa markay isku wada geeyeen waxay dhaheen dadka ku dhintay qarax waxay ahaayeen 587 qof. anaga saas waa laakiin anaga waxaa noo kaalkolaadaysan ilaa 632 qarax. 630 qof oo ku dhimatay qaraxii Zoobe, 100 qof oo ku dhimatay qaraxii Hargaha iyo Saamaha, ku dhowaad 90 qof oo ku dhimatay qaraxii X Control, 70 wariye oo lagu dilay badankooda magaalada Muqdisho, 10 qof oo culimo ah oo lagu khaarijiyay waddanka, 10 bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir oo ku dhimatay rasaasta iyo qaraxyada Muqdisho. intuba waxay ka mid yihiin dadka rayidka ah ee lagu bartilmaameedsanayo weerarada socda. Letitia Barer oo ah cilmi baaris sare oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay galka baarista u sheegtay in al-shabaab ay bartilmaameedsato rayidka. dhimashada rayidka badankeedna ay al-shabaab mas'uul ka tahay. Fighting and insecurity in Somalia continues to have a devastating impact on civilians, and al-Shabaab's attacks are the main cause of civilian casualties in Somalia right now. This is due both to indiscriminate attacks and the use of weapons and weaponry that don't discriminate and differentiate between civilians and military targets, but also because of targeted attacks on civilians, including individuals that took part. qaramada midoobay ayaa ururinaysay sanadihii la soo dhaafay dhimashada iyo dhaawaca soo gaadha rayidka 8 bilood ee ugu dambeysay oo kaliya 100 rayid ah ayaa ku dhintay Soomaaliya. qaramada midoobay sida ay sheegtayna 75% haddii aanay ka badnayn waxay ka dhashaan weerarada al-shabaab.